أهلا وسهلا. ما شاء الله مدني. كريم الهاوي وأنا موتوينك كحيا صوصات ما موتوينك كحيسا. ها مدني. ولي ميت كحيسانا مايا ولي ما كرتا منها بس با وتوجسي كريم قصة أي وطا قصتي سنو وليبا وإساقي ولالك وليد يولي إنك ولالك دالي معها مكيس إنك ولا كردالي لا ونحرست محمود كريم سيدان هرو sheegay wuxuu ahaa ninka xeeya mootooyinka waxaan jeceliyay inuu xoog socdo walaalkiisa ka weyn waliid markasta wuxuu sheegi jiray ugana digi jiray walaal mootooyinka xoog ha u wadin waa talabaade haddii aad kaxayso mootadana ha kaxaysan inanka waliid dhalay weeye waa inan keliya iyo 4 hablood u dhalay inankiisa daba yar yahay maalin maalmaha ka mid ah qadar baa dhacay كريم wuxuu ka haystay inuu walaalkii dhalay ee Maxamuud isagoo xislahaa ka soo farxiyay inuu walaalka dhalay waanu ka haystay si uu la soo wareego laakiin kaxantaas waxay ahayd kaxantii ugu dambeysay ee Maxamuud Ilaahu naxariistay waa uu dhintay Maxamuud shilkii ayuu ku dhintay isna waa dhaawacmay natiijadiisuna waxayd geeri dabcan Kariimna dhakhtarka la dhigay adiga wax dhaawac ma soo gaarin adiga wax jabnayna ma soo gaarin ha markii la aasay ee jinaasada Kariim uu tagay xamili kari waayay waanu iskaga tagay murugo daraadeed wixii dhacayba Maxamuud aabihii walaalka Kariim weeye ee Waliid xiriirkii ay u jaray walaalkii haddaba maanta muddo laga joogo 5 sano shilka kadib wuxuu yimid Kariim stuudiyahan si uu xiriirkii walaalkii u soo ceshto ka dalbada cafin una isku dayo inuu ilowsiyo wixii hore xiriirkooguna labadooda ku soo noqday sida soo saas ma wax kale oo dhahdaad ugu mahaysid miyaamaka Kariimo imaka intaan xasuustay waxaad ku darayso micnaha bas waayo sheekadani waa sheeko aad u murug badan noloshaadana saameyn ku yeelatay soo saas ma aha waan gartay anagu haddaba fariintii waan u dirnay walaalka ee Waliid bal aan wada aragno sidii u gaadhay fariintu tabcan وليد ما أوجع عدة ويادي وحقوقي هنا أنا نقول يادون qisadan hayna waa mid murugo badan xambaarsan sidan marka hore u aragnay hordhaca hortii Kariim halkan buu yimid si uu u soo ceshto cilaaqaadkiisa walaalkii Waliidna waa mid ka weyn isaga Waliid wuxuu waayay inankiisa kaliya ahaa Maxamuud uu waayay sababtoo ah Kariim wuxuu jecel yahay mootooyinka inuu ka haysto waxaanu ka haystay Maxamuud oo inankii yaray walaalkii dhalay si uu soo farxad geliyay inanka walaalkii dhalay waxaana ahayd safarkii Maxamuud ee ugu dambeeyay ee dunidan walaalkii Waliidna ma saamixin walaalkii waxaana kala go'ay xiriirkooda 5 sano insha Allah waan isku day doonaa isku soo celino maanta Waliid iyo Kariim amba Kariim iyo Waliid waanu yeedhnay haddaba waanu aqbalay dacwadeedii halkan stuudiyoon ku sugaya falyatafadal haddaba أهلا وسهلا وليد وانا وين مدنة إيغورن حالة دادا ما شاء الله وفي عنها صفريزو وكسودو واد ما سنتي مدنة إيغورن وركاغا يوكو فامل كبا الحمد لله إيغورن الحمد لله وفي عنها وفي عين سماعة الحمد لله شغيسا أدوبونا شركة بانك شغية شركة أيارك شغيسا إلهي كدايو صلي ذا أبطنا وعلي أفر هبلود إلهي ويلا ولا أنجري لك واد انتي إلهي نعرستو الميربوها أدو شنجربوها ميلها 5 sano waanu geeriyooday ilaahay una xariisto adigu waxaad isweydiinaysaa aan horena wad u weydiisay waraaq sidaayegi waxaana tiri maxaa laga rabaa soo way qabay moogtay kidis bay ku noqotay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa maashaaga ilaahay ku daayo barnaamijkan magaciisa wad garanaysaa waxa la yiraahdaa Musaamax Kariim waa barnaamij xiisado kalgacal haday noqonayso iyo heshiisiin dadka adiguna martibadii tahay aniga
waana nagu karaamaysan tahay ilaahay ku daaya mudane waan kaaga mahad celinayay maasha mahadsaned mudane anigu laakiin anaa fariinta kuu soo diray laakiin qof kale ka socotay waana qof adiga ku ixtiraamo ku jecel waxaan ii sheegtay inaad qiimo weyn ku leedahay ma doonaysa inaad ogaato qofku yahay waa kumana ma doonaysa inaad ogaato fiicnaan lahayd shaashadda inaad eegto kan maxaa keena meeshan mudane kumaan weydiin maxaa keena meesha fadhiiso horta maya anigu waa iska tegaya mudane igaraalo mudan aniga dhib male haddii timid isaga uma dhiman igaraalo mudane ma doonaya cadaadis inaan ku saaro laakiin sirada jiif filaan lahayd inaad waan garta laakiin isaga maxaa keena meesha ma doonaya inaan arko ninkan arki maysid anaad ii fadhidaa meesha anaad ii joogtaa anigu garamayo kan waxaa meesha keenay aniga may maqlaysaa waad ii karaamaysan tahay fadhiisa haddaba maya mudan ertay maqal aniga wayna tagaan doonaya waad tegaysaa laakiin aniga maqaloo fadhiiso maya horta joog horta maya mudan horta yeeradda in yar maya wax yar yeeradda mudane maya joog horta halkay tegaysaa isagan doonaya anaa doonaya isaga anaa u baahan halka maxaad ka doonaysaa horta ii fadhiiso bari horta isaga yeeradda anaa doonayay horta sirada jiya fadhiiso labadeena wada hadlaynaa ahlutul ayaad arkaysaa isteji horta ii fadhiiso aniga ii fadhiiso biyo ma ku keenaa ma ogta aniga wuxuu igu sameeyey ma garanaysid wuxuu igu sameeyey fadhiiso horta dad arki lahaa qadari horta aniga inankaygii buu dilay miyuu jeedeenaa weliid miyuu islahaana waad dilaysaa anigu dhowr jeer baan u sheegay laakiin miyuu islahaa hakaxan inankayga dhowr jeer baan ku yidhi isagu ismuu lahayn saan baad samaynaysaa lala kulma dooni maayo bes khalaas lama kulmaysid haddaba bes haddaba walaal lama kulmaysid wallaahi siirada jeerta xoogaa xaaladaad igu sameeyey inaad ogeen ma ogin wuxuu igu sameeyey waan ogahay anugu laakiin siirada jeerta inankaygii buu dilay istaji waan kaaga tacseedaynaya inankaaga ee fadhiiso anigu sheekada waxaan ka fahmay saa marka horeba u fahmayba inuu isagu marka horeba ku qaaday mootada waxaanu islaa ka soo faraxsii wiilkaaga shil baan ahayd waxaan dhacay oo waxaad leedahay markaa inankaagu dilay isagu anigu waa iska tegaya mudane biyaan kuu keenaya marka hore waa tegi doontaa haye soo ma rabtid biyo kow ayaan ka siinaya kow baan ka siinaya anigu adigu maanta ka hor maad arag miyaa ilaa goorta adigu indhamaad saarin miyaa adaa diida inaad aragto soo dooni ma inaan arkana ma rabtid inaad aragto eeg imaqala weliid istaji horta aniguna soo eeg isaga waxba eegin iska ilow lamana kulmaysid mana arkaysid bes xalkaa ku ilow bes laakiin labadeena in yar wada hadlaynaa adigu walaalo aan isaga ahayn miyaad leedahayna gabadh baa jirta gabadh keliya aniguna iska tagan doonaya mudane laakiin in yar yara sug biyaha lagu keenay haye kow ayaan ka siinaya anigu ma rabo intaan ka badan inaan ku cadaadiyo qisadani waxay tahay mid dareenkaaga ku dheehan adigu waad garanaysaa haddaad doonaysa inaad aragtiyo haddii kalaba bes laakiin waxaan doonaya inaad ogaato waxani waa qadar oo dhacay weeye maya adigu miyaad aaminsanayn qadarka alle waan aaminsanahay amarka alle ma aaminsanid waan aaminsanahay qadarkani qadar alle weeye aan weliidow imaqal haddaba imaqal wallaahi imaqal horta aniga fariin ayuu ku soo qoray waana ku akhriyo inaan dhageysto anigu ma inankayga fariintan ii keenaysa maya fariintan inankaaga kuma keenayso qof kuu keenaya male haddaad xataa isaga disho kuma keenayo haddaad kowka ka sisa xataa kuu soo noqon mayna anigu waan doonaya horta isaga anigu isagaan doonayay mana ogeyn meeluu joogo horta isagaan doonaya marka horta aan soo arko horta isaga maya horta istirada maya isugu horta mudane isugu horta inaan arko keliya ma doonaya bes ixtiraam dadka barnaamijkana qadari weliid waa ku sidee halkan fadhiiso waan kula hadlayay maqal way qadariya fadhiiso waan arki doonaaye waanu ku tusi doonaaye fadhiiso horta fadhiiso welidi maqalo duu garan maysid wax ii gaarsiinakan waan garanayaa waana fahansanahay duu garan maysid wax ii gaarsiinakan walaalkayga qaaliga waan dareensanahay dhaawacaaga ilaahay baan muddo ka baryay inuu ilaahay wiil unu siiyo isna waa iga dilay miyuu islaasaan ba dhacaysaa waan uga digay in badan baan uga digay weliid horta waxna waa iga maqli waayey ma qofaan khaldami baa jira adigaba imsuu abbaa kaaga digay wax ood samaysayna ha kaxeen baan ku yidhi anigu ciiddaa wax ka badan ha ku kaxeen mootadaada war ha ku kaxeen mootadaadaan yidhi mootada hadaf noociya ku kaxeeyey
maynu diluu kaxeeyey mootada wuxuu ku kaxeeyey inuu inanka yar farxad geliyo ilaahayna u naxariisto in badan baan uga digay waraa ku ciyaaran mootadan oo kaxayn inanka yar baan yidhi Waa dhowr dhacay jeer shil. baanu shil galay anuu inankaygan u baqay welidow shilka wuu dhacay mana sahlanayn sahal ma ahayn laakiin waa dhaceen qadar ayaa dhacay aan ma doonin inaan arko oonan mana arkaysid lamana kulmaysid bes haddaba maqalon wuxuu yimid inuu ku dhaho laba eray qalbigiisa ka soo go'day waayo isagu waa murugaysan yahay weliba isagoo walaalka ma noolaan karo iskugagala maad ku jirtid wallaahi ismaan lahayn booskaaga kalena lama soo geli karo waayo waayitaankaad weydaynankaaga waa arrin aad u adag ilaahay baan ka baryay inuu margun wiil isiiyo mar kaliya ilaahay inuu wiil isiiyo waanad keeni doontaa wiil kale wiil dhallinyaraaba tahay weli walaalkayga qaaliga ahaayo weliidow adigu waxaa tahay walaalka ugu qaalisan ee dunida waan garanayaa mana soo koobi karo saan ku jeclahay qofka keliya og wanaaggaygana waa adiga agtaydana qaaliga ku ah walaalkaygo waan ogahay anugu intee in leeg ayaad ii baqatay iina warwarshay adog weliba aniga ii digaya kana warwarsanaa wiilkaaga maxamuudna laakiin hadalkaaga maan maqal haddaba markay musiibadu dhacday walaalkayga qaaliga ahaayo noloshaydu mugdi ayay gashay fiinaan lahayda anigu halku wiilkaan adeerku waa dhimanaya inaan dhinto anugu maqlaysa wuxuu leeyahay halku inankaagu dhiman lahaa fiinaan lahayda anoo dhintaa waan ogahay inaanu holici aanu kaa demin markii uu dhintay wiilkaagu laakiin waxaan kuugu dhaaranayaa ilaahay maalinna ismaan odhan walaalkaa dhabar jabi maalin walba waxaan la murugsanahay oon u dhimanayaana murug iyo welwel haddii aan naftayda laygu xakameyn lahayn oon alle aan ka baqi lahayn anaa naftayda dili lahaa kani waa walaalkaa wuxuu doonaya inuu isdilo maha walaalkay kani idna dunida kuma haysto aan adiga ahayn maxamuudna maanta wuu inaga dheeraaday laakiin i rumayso walaal musiibada anigii soo gaadha adigana kaama foga dhaawaciguna fogaashuhu inaga fogaaday maxamuudna aad ayaan uga welwelsanahay isaga yacni inteen leeg buu dhaawac qabaa wuuna ka dhaawacan yahay dhimashada wiilkaaga wuxuu ka welwelsan yahay ka fogaashuhu kaa fogaaday dhankaagu walaalkaygii weynaa ee aabbahayna ahaayo walaalkaygii in badan isoo gargaarayo waan ku baryayaa ee raaligelintayda maqal oo oggolow ballan baanan kugu qaaday waxaad doonaysa inaan sameeyo ii oggolow inaan laabtaada soo galo oo aan ku noolaado inta noloshayda ka hadhay mid kaa yeela qof faraxsan wal musaamax ma kari doonay inaan la kulmo bes waxaan doonay inaan iska tago waad tegi doontaa aniguun ku fahmayaa khasaarahaagana waan dareemi karaa aniguna waa kan aniga stuudiyahan uma joogo inaan adiga ku dhibo oon murugta kugu sii badiyo wallaahi weliid adigu qof fiican baa tahay go'aankuna gacantaadu ku jira wiilkana wuu yimid waa ilaahu inuu walaalka yahay kani ma haystaayo waa kalbi weeye wallaahi waan ogayn muxuu yahay xun weliba jecesha inaad maqasho wallaahi dooni may hataa inaan maqlo ma rabtid inaad maqasho mana saamaxaysid miyaa waan gartay andayno horta laba erayaa dhaho wuxuu dhahayo kadibna waad iska tegi doontaa haye haddaba kariimow tani waa fursad ood ku odhanayso walaalkaa weliid weeye waxaad dareemayso dheh haddaba anigu cidaan adiga ahayn ma haysto walaal adiga la'aantaa mugdi bay tahay anigu ma garanayo la'aantaasaanu noolaanayo anigu waan ku bahdilmay sidaan isaamax walaal qadar baa dhacay walaal ulajeedkayguna sidaa ma ahayn walaal ulama jeedin wallaahi anigu inankan adeerku maxamuud inaan dila ma ahayn ulajeedkaygu isaguba inankaygoo kaluu ahaa walaalkay iyo saaxiibkayna wuu ahaa anigu waan jecelahay fiinaan laheeda walaal inaad saamaxdo anigu adii la'aantaa ma joogi karo walaal cidaan adiga ahaynna ma lihi walaal isaamax ma doonay inaan la kulmo ma rabtid inaad la kulanto miyaa ma awoodid inaad saamaxdo miyaa ma doonay inaan la kulmo waan gartay laakiin su'aal yar baan wataa ilaahu naxariistay maxamuudkii yaraa miyaanu isaga jecleen wuu jeclaa miyaanu jecleen inankaaga wuu jeclaa adeerkii laakiin anigu dhowr jeer baan ku yidhi iska daa waxan war jooji laakiin inanka yar markuu inankaaga hiriiri mootada igu qaad isaguna wax kale u qabto u garan aniga si waayey kasta ugu cadhooda hataa maya baan ku yidhi waayo isagu dhowr jeer galay shilka anna inankaygan u baqayay wara kaxsan baan ku yidhi mar walba waa iga diidi jiray ciddaa wax ka badan baan anigu ku yidhi iga daa war inanka ha kaxaysan inankii iska daa waa anuu kaxaystay hadda ka hor maraan shaqo ku maqnaa
markaan soo noqday ayaan waxaan maqlay shilkaasu dhacay waxaan arkay inankii oo geeriyooday fiinanayda isagu inuu dhinto aniga naftirkayna dhintaayeed waa arrin aad u adag waan ku fahmaya anigoon ku fahmaya walaal laakiin eeg weliid si kalsoonin la run leh ayuu ku yimid adiguna is adkee bal oo istaji adiguna qadar allah dhacay ilaahay baana qoray sidaan laakiin adiga is adkee inaan dhallinyaraaba tahay istaji mas-uuliyad baa ku saaran ubadkaaga 4 hablood iyo hooyada mas-uuliyad aad u weyn istaji adigu weli murugtii baa kugu jirta anaguna waan ku xasuusinay murugtii ku jirtay qalbigaaga bes laakiin khalad hay fahmin aniga garan maayo intaad adigu laakiin waxaan kaa doonaya inaad ageejisoon ballan soma dooni ma intaa ka badan inaan kaa cadhaysiiyo dooni ma inaad aragtay isagana haddii aad hadhow tole aad doonayso iyo ood ka soo fikirto adigoo ilaahay ku ogyahay oo tidhaahdo walaalkay waxaan doonaya inaan arko maxamuudna wadi weyday walaalkayna ma waayi karo isku noqo ka fikir arrinkan adigaana go'aankaa iskale bes laakiin anigu halkan intaa in ka badan dooni ma inaan ku cadaadiyo soo ma ogolid may kaale maxaa halka ku keeni iyo daaya la hadle daaya maxaa ku keeni adiga meeshan adigu walaalkay baa tahay wallaahi walaalkay baa tahay qofaan adiga ahaynna ma haysto weliid la hadal si life oo la hadal maraba anigu inaan arko bes khalaas waad aragtay isagoo murugaysan ayuu yimid igana raalla hubu ku yidhi walaalkayow adigu walaalkay baa tahay adiguna mina kariim weydaad doonaysaa in badan baan naaweliya inankaas anigu war qadar allah dhacay wixii way dhaceen ey dulliyaa tahay ey baa tahay ma laga yaaba inaad saamaxdo igaralah walaal ma laga yaaba inaad saamaxdo igaralah walaal marabaa kan ka jigaysa inaan arko la hadal adigu kariimo la hadal walaalka walaal igaralahow wax kasta wadi siin jirta walaal adigu waan dii wanaagsaneed aniga maxaad u kaxaysatay adigu ii sheeg igu dhaga igu ooyo xiri ilow inaan ku raacan doonayaa saasaanan ku kaxeeyey inaad dishuun baad doonaysay soo maaha laakiin ta isaga go-aankiisa ma ahayn gacantiisa kuma jirin isagoo sidaa dilayaba ilaah baa dilay ilaah u naxariisto in badan baan u sheegay anigu waraa kaxaysan sidaas soo maaha haa walaal istaji adiga naftirkaaga wadnugu ku istaagi karayaabe istaji ilaahay baa qoray tan ilaah baa qoray adigu ilaah ma aaminsan tahay maya alxamdulilah ilaah waan aaminsanahay waan gartay isagu dambi gebuley markaa waxaan ku yidhi dhowr jeer aa isma lahayn laakiin isagu waraa kaxeen baan yidhi dhowr jeer aa kaxeen laakiin isagu muslaa waad dilaysaa mar kastaba waan qaadan jiray anigu adigu waad og tahay adiga naftirkaaga inu si fiican u fikirto weeye miyuu islaa wuu dhimanayaa mideeda kalena waa inankii walaalkii kaale haddaba bes haddaba ma rabtid inaad saamaxda miyaa ma hadli kara intaa ka badan waan gartay iga qadfara walaal igaralow ku barya walaal igaralow bes walaal igaralow laanta ma noolaan karayo walaal